wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa diiday inuu noqdo wasiirka cusub wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee loo magacaabay. war uu soo saaray ayuu ku sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu qabto xilkaasi cusub ee loo magacaabay. waxaa sharaf ii ah in Abriil 11keeda 2021 la ii magacaabay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada. wasaaraddan oo aad muhiim u ah waxay u baahan tahay wasiir dardar geliyo howlaha baaxadda leh ee ka socda wasaaradda. anigoo jecel inaan u shaqeeyo waddankayga hooyo, suuragal imaan xilligan inaan qabto shaqada muhiimka ah ee la ii magacaabay. sidaas awgeed waxaan ka cudur daaranayaa qabashada xilka muhiimka ah. duruufo qoys iyo kuwa shakhsiyadeed ayaan ii saamaxaynin inaan hawshaas geliyo tamarta, waqtiga iyo firfircoonida ay u baahan tahay mas'uuliyaddan baaxadda weyn. waxaan uga mahadnaqayaa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha fursadda qaaliga ah ay ii siiyeen inaan u adeego inta tabartayda ah waddanka iyo shacabka Soomaaliyeed. muddadii aan xilka u hayay ummadda Soomaaliyeed waxaa suuragal ah inuu khalad iga dhacay. ma khaldama waa ilaah. waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inay iga cafiyaan khaladaadka laga yaabaa inuu igu dhacay.